السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أقيارتا إيقو حرن يوتيوب كيغا آد يا إذن كان مدعلنا مادام آد فيديو كيغا داوتان فضلا لايك تي شير كاهيغي هلمامنا ما انتو وحان ربا برنامج oo ka duwan barnaamijkii hore magaalo kale inaan idiin soo duubo mar walba waxaan isku dayaa dholalka ay Soomaalida ay ka faa'iidi karto inaan u soo gudbiyo. maanta waad u jeedaan waxaan u socdaa magaalada Kajiado oo wada fiican ay saaran tahay laami. laamigan waa laami ka soo baxay Nairobi oo aaday ilaa iyo meesha la yiraahdo Kajiado. Kajiado waa meel u dhaxayso Namanga iyo Nairobi dhexdeeda ay ku taalaa. Namanga sida ogtahan waa xuduudka Kenya iyo Tanzania waaye. marka Namanga gawaari walba oo ka imaata Tanzania Namanga ay soo dhaaftaa kadibna waxay soo martaa meesha la yiraahdo Kajiado. Kajiado marka wada waxa saaran oo highway ah oo fiican oo waliba mar walbana ay busy tahay ayaa saaran. marka sida hadda u aragtaan xataa jamka iyo haddii aad ka baqayso waxaad qabsanaysaa wadadan super highway-ga fee yar oo la iska bixiyaa jiro. marka dhul weliga allaha markaad iibsanayso dhulka waa inuu leeyahay istaraatiiji. dhul waa wado. dhul hadduusan wado lahayn badanaa dhulka qiimo ma laha. dhulka qiimihiisa waxaa lagu fiiriyaa dhulka inuu wadada saaran yahay. dhulka maanta aan idiin wado waa dhul oo maxaa la yiraahdaa meel fiican saaran wadada laamigana saaran. waa dhulka badanaa oo lagu talagalay commercialka. dhulkan waa dhul oo sida u jeedaan waa dhul oo doog ah. waa dhul maxaa la yiraahdaa meel oo barwaaqo ka jirto biyo la'aan iyo waxaas ma jiraan. dhulalkan badanaa waxaa lagu talagalay dhulalka oo commercialka lagu talagalay waaye ama ganacsiga. meeshan maxaad ka samayn kartaa marka waa su'aal. meeshan waxaad ka dhisi kartaa kaalin shidaal. ninka xiiseynaya inuu kaalin shidaal dhiso waayo haddaad meeshan kaalin shidaal ka dhisto waxaad ogaataa gawaari walba oo meesha oo ka timaada Tanzania oo Kenya imaanayso meeshan ayay soo maraysaa. gawaari walba oo ka baxaysa Nairobi oo aadaysa Tanzania ama Arusha u socotana kulli halkan ay marayaan. taa micnaheedu waxa waaye kaalin shidaal waa loo baahan yahay. waxaad ka dhisi kartaa hotel ay gawaarida ay habeenkii ay ku nastaan waa maadaama ay tahay meeshan kala barka Nairobi iyo Namanga maadaama ay tahay waxaad ka dhisi kartaa hotel. waxaad ka dhisi kartaa maxaa la yiraahdaa waxyaabo fara badan oo micnaha de opportunity badan maadaama dhulka uu laamiga saaran yahay. dukaamad ka furi kartaa. waxaad ka furi kartaa maxaa la yiraahdaa supermarket oo yarad ka furi kartaa si dadku ugu nastaan waayo magaaladiina way ku dhex jirtaa. waad u jeedaan laamigan ilaa iyo sida u socoto ilaa Tanzania unaad geli kartaa. micnaha laamiga intaad ka degto wado oo raaf iyo waxaas ma jiraan. dhulkan waa dhul qiimihiisa aad iyo aad u jaban yahay. waa dad la isku hubo waaye oo maxaa la yiraahdaa waxyaabahan oo dadka la gaado iyo barnaamijkaas iyo ma jiraan. waa wax 100% oo micnaha de Yes. Yo. Umeiona? Yeah. So ingine itakuwa somewhere hapa. Sasa hii biko wangepanisha juu juu. Ipe mic hapa. Makosa hiyo. يا جيت كم عيسى راضي تجار قرع مهم يا جيت كم بحث انت مارك كذا انا بحايا مشان ابتي سي هاي halkan ilaa halkaas aniga iibsaday ya hada socdo meesha ku soo yaaca ku magaalada banacad maadi hada ninki ka maqan oo u dhamaatay dhulkaan horta fiiri horta laamiga intuu jiro horta fiiri nimepata hapa moja 9 number 9
Number 9. Hakuna namba ameandikwa hapa. Ay, Oscar tuigil gari. Number 9 au inta ku qoran tahay meesha ka hadlaya. Ii barabara dhulkan fiirto meesha laamiga u jiro fiiri suuqan fiirsha. Dhulkan laamiga waa kaas. Dhulkan waa kana. Laamiga dhulkan waa kana. All the way here. runtii dhulkan saad u jeedaanbo ishiina idin macalin ah inuu dhul barwaaqo leh yahay waa u jeedaan oo maxaa la yidhahdaa meesha ay meel oo magaaladiina maxaa la kama fogo meeshaan magaaladii way ku dhex jirtaa waad u jeedaan police controlka meesha hadday aad u jeedeen waaye dhulka markii dhulkana waa dhul oo very fertile waaye oo meel maxaa la yidhahdaa abaar ka jirtaba ma aha meeshaan waa meel maxaa la yidhahdaa istaraatiiji fiican waaye sidaan idin sheegay waa 45 daqiiqo magaalada Nairobi maxaa la dhahaa Central Business District oo Nairobi ayuu wuxuu u jiraa 45 minutes qiyaasan ahaan 45 daqiiqo qurux haddii la yidhaahdo waad u jeedaan dhul buuro iyo heesta waaye wadda laamina heesta waaye waa dhul waxyaabihii ugu aas-aasanay oo leh waaye oo xataa dhismooyinka oo magaaladana kama foga waad u jeedaan marka dhulka waad u jeedaan insha Allah waan idin soo duubnay fadlan haddii aad xiiseynayso dhulkan si aan kugula xiriirino dadka dhulkan iibinayo telephone numberka oo WhatsApp igala soo xiriira telephone numberka waa +46 731 42 71 85 numberkaas ayaad igala soo xiriireysaa insha Allah anigana ku sharaxi doona insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo dhulkan wixii macluumaad aad u baahan tahana iyo qiimaha iyo kulli insha Allah waa lagu sheegayaa waxaa kaloo xusid mudan dhulkan oo hadda projectigan aan tagnay waa dhul oo almost oo dhamaaday waaye waxaa ka haray 2 bilood oo kaliya ayaa kasoo hartay 2daas bilood oo soo hartay intii kala dhan waa la iibiyey marka projectiga shirkaddan waxaa waaye mar walba waxaa waaye projectiga ay bilowdo markay dhammayso meel kale u gudubtaa marka hadda dhulkan waa dhul oo dhammaaday oo 1 boos bisa 2 boos bisa ka haray mid oo laamiga saaran iyo mid oo laamiga gadaashiisa ah oo aanan laamiga saarnayn laakiin aniga badanaa dadka waxaan kula taliyaa dhulka oo laamiga saaran maadaama laamiga oo muhiimadda ugu weyn uu yahay oo maxaa la yidhahdaa xagga ganacsiga markii la yidhahdo dhulku wuxuu fiican yahay inuu wadada saaran yahay dhul aan wadada saarnayn badanaa maxaa la yidhahdaa ganacsi ma naqanayo ganacsigiisana micnaha ma fiicnanayo marka insha Allah ka faa'iideysta aad iyo aad u mahadsantihiin akhyaarta fadlan like-ta iyo share-ka waa dhankiina wixii su'aalaad qabtaana xagga commentiga igu dhaaf insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.